هايو تيم براها ما ogaa karo garsooraha maxkamadda xukunka habraaca oo u maray inuu saxnay iyo inuu khaldanay laakiin waajibkiisu waxa waaye inuu tiim bareeyo go'aankaas ka soo baxay garsooraha ama go'aan ka soo baxay gudoomiyaha maxkamadda muwakkilkeenu wuxuu ahaa qof tiim bareeyo ogolaashada fiisooyinka la soo ogolaaday oo madaxda si kar sareyso ay soo ogolaadeen waajibaadkiisa kuma jirto inuu qabto codsiyada waajibaadkiisa kuma jirto inuu hubiyo codsiyada waajibaadkiisa kamid maahan inuu hubiyo fiisooyinka waajibaadkiisa kamid maahan inuu ogolaasho u bixiyo waajibkiisu kaliya waxa waaye inuu tiim bara saaro marka muxuu ahaa la soo ogolaado oo la helo ogolaasho la helo sida aan ogsoonahay howlwadeennada waxay isugu jiraan maamulka ah kuwa la go'aan iyo kuwa aan lahayn qofka shaqaalaha ah waxa laga yaabaa inuu yahay qof go'aan leh oo go'aan qaada karo qofna waxa waaye waxay madaxda ka sareysay ay soo go'aamiyaan ayuu fuliyaa sidaas ayuu u qaybsamaa arintaas waxa rabaa inaan ku soo celiyo shaqaalaha iyo howlwadeennada dawladda ee xafiisyada kala duwan ka shaqeeyo waxay isugu jiraan laba qaybood qayb kamida waxay leeyihiin go'aan ay ku qaadan karaan awood ay go'aano ku qaadan karaan leeyihiin qayb kalena malaha awood ay go'aano ku qaadan karaan waxay fuliyaan go'aanada ay soo saaraan dadka ay ka sareeyaan muwakkilkeenu wuxuu ahaa sargaal ama howlwadeyn fuliyo go'aanada ay soo saaraan dadkaasi ka sareeyo ma ahaynin qof go'aan lama ahaynin hubin ma lahaynin saxiix ma lahaynin ogolaasho ma lahaynin diidmana ma lahaynin awoodiisu waxay ku koobnaaday inuu tiim bareeyo fuliyane amarka ay keenaan saraakiisha ka sareyso ay gaaraan saraakiisha asi ka sareyso ee dawladdu ay gaaraan mudane gudoomiye maxkamadda sharafta leh muwakkilkeenu waxa lagu eedeeyay sida aan ba ogsoonahay in oo heshiis la sheegay dadkaani inay heshiis ku aayeen xatooyo xoolo dadweyne oo qayb ka noqday waxaan rumaysanahay heshiiskaas inuu jiro inuusan jirin waxaan rumaysanahay heshiiskaas inuusan ahayn heshiis jiro oo saxa lana cadeey kari waayo ha yeeshee waxaa mudan heshiiskaas in la isweydiiyo dhowr arrimood waxa la yiri September 2022 isla markii la soo bedelay muwakkilkayga ayuu hore uga biiraalay heshiiska laakiin inta aan la gaarin heshiiskaas muxuu ahaa hore uga biiray iyo in kale waxa u baahneed horta marka koobaad in la hubiyo heshiiskaas sax ma ahay ma jiray taas waxaan rumaysanahay inaanu ahaynin heshiis jiray oo sax ha yeeshee waxa loo baahnay 6 su'aalood in la isweydiiyo si aan u hubino heshiiskaas muwakkilkaygu oo hore uga biiray inuu ahay asagu qof faa'iido u leh heshiiska ilaa waxa ognahay heshiis markii la galaayo waxa loo baahan yahay qofka heshiiska galaayo inuu yahay qof faa'iido u leh heshiiskaas asiga 6daas su'aalood waxa waaye maxaa looga baahnaa inuu heshiiska qayb ka noqdo qof si sahlan loo bedeli karo yaani su'aasha koobaad waxa waaye maxaa looga baahnaa heshiiska la sheegay inuu qayb ka noqdo qof si sahlan loo bedeli karo waxaan isku waafaqsanahay oo asagoo maxkamadda horteeda uu ka sheegay in agaasimaha waaxdu uu soo bedelay meel kale uu ka shaqeynaa wax kale uu ka shaqeynaa su'aashaas markii waxay u baahnaaday in laga jawaabo si aan ogaano inuu muhiim u yahay heshiiska iyo in kale arinta labaad waxa waaye maxaa looga baahnaa inuu heshiiska qayb ka noqdo qof aan saxiix lahayn waxaan isku waafaqsanahay oo halkaan ka cadaaday muwakkilkeenu inuusan jirin warqad uu saxiix asiga maadaama uusan saxiix lahayn oo la leeyahay arintaas uu saxiix lahay sidaas loogu baahnaa maxay tahay sababta loogu baahday inuu heshiiskaas qayb ka noqdo taasna waxay kamid tahay waxyaabaha aan laga baaraan degin
isla markaana aan laga jawaabi karin ilaa iyo hadda su-aasha saddexaad waxaa waaye maxaa looga baahnaa inuu heshiiska qayb ka noqdo qof aan hubin lahayn muwakilkeenna waxaa la isku waafaqsan yahay shaqooyinkiis inaanay ka mid ahaynin inuu wax hubiyo maadaama shaqooyinkiis aysan ka mid ahayn inuu wax hubiyo maxaa looga baahnaa inuu heshiiskaas qayb ka noqdo su-aasha afaraad waxaa waaye maxaa looga baahnaa inuu muwakilkeennu heshiiska qayb ka noqdo maadaama uusan lahaynin wax ogolaasho approval iyo ogolaasho maadaama uusan lahaynin maxaa looga baahnaa inuu heshiiskaas qayb ka noqdo su-aasha shanaad waxaa waaye maxaa looga baahnaa muwakilkeenna inuu heshiis qayb ka noqdo maadaama uu ku filan yahay amar kaliya go'aanna uusan asugu lahayn su-aasha ugu dambaysa waxaa waaye maxaa looga baahnaa heshiiska maadaama agaasimihiiba soo bedelay la sheegay inuu heshiiskaas qayb ka ahaa taa micnaheedu ma aha su-aalahan aan keenayno inaan ogolnahay ama aan aaminsannahay inuu heshiiskaas jiray horay ayaa loo caddayn kari waayey wuxuuna ahaay heshiis wax layska mala awaalay mudane guddoomiye maxkamadda sharafta leh jawaabaha ka imaanayo lixdaas su-aalood waxay tilmaamayaan muwakilkaygu inuusan haddii uu jiro xataa heshiiskaas inuusan faa'iido u lahaynin useful uusan u haynin wax macnaana uusan u lahayn mudane guddoomiye maxkamadda sharafta leh muwakilkeenna saan hore u sheegnabo lacag meel ay taallane ma arag haba yaraatee sidoo kalene meel qof lagu amraayo inuu lacag soo bixiyana weligiis muu aragin waajibkiis wuxuu ahaa markay shaqadu soo dhammaato inuu fiisooyinka saaro tiim bare inuu saaro ayaa waajibkiisa ay tahay si la mida kaaliyaha maxkamadda tiim baraha saaro marka go'aan maxkamaddu ay soo gaarto waxaa kaloo halkan caddaymaha waxaa ka hadli doona qareen kale aan rabaa inaan u gudbo akoonnadiisa mudane guddoomiye maxkamadda sharafta leh muwakilkayga marka aad fiiriso akoonnadiisa markii la soo bedelay kadib lacag waxaa martay totalkeedu yahay 23,800 iyo dhowr marka la fiiriyo maalintii oo akoonka furtay laga soo bilaabane waxaa martay lacag gaarayso 30,000 iyo jajab gaarayso mudane guddoomiye maxkamadda sharafta leh marka laga hadlaayo horta waxaan rabaa inaan halkaas aan taabto hay-adda FRC waa ka xishootay muwakilkayga markay aragtay akoonkiisa markay aragtay qeexitaankii waxa loo yaqaano lacag dhaqis way ka xishootay inay tiraahdo lacag dhaqis ayuu sameeyey aadan maxaa yeelay 30,000 iyo 20,000 looma yaqaano lacag dhaqis qeexitaanka lacag dhaqistu wuxuu ka bilaabanaa lacag fara badan inuu qofku si sharci darraa ku helo kadibna qaab sharci u eg oo u bedesho marka lacag fara badan 30,000 oo akoonka markii la furay ilaa hadda ku dhacday iyo 20,000 oo markii la soo bedelay ilaa hadda ku dhacday lacag fara badan looma yaqaano meeshaas waxaa ka baxay qeexitaankii lacag dhaqista waxaan rabnaa ha yeeshee muxuu ahaa maadaama xeerlaalintu ay eedda ku soo darsatay sida eedaysanayaasha kale si la mid ah waxaan rabnaa inaan meelaha lacagaha ay ka yimideen inaan tilmaano 13,150 waxaa u soo diray cabdiqani lacagahaas xilliyo kala duwan oo soo diray lacagaha cabdiqani oo soo diray akoonka IBS way akoonkiisa kaleeto lacaga kaleeto ku soo dhaca ma jiraan abeeraati oo ka baxsan mushaarkiisa akoonka IBS lacagaha cabdiqani soo diray haddii la isku dardaro xilliyo kala duwan oo soo diray waxay gaarayaan 13,150 cabdiqani waxaan hore u sheegnay oo muwakilkii hore u sheegay inuu ahaa qof bartiner la ah
oo lacag oo ku darsaday kadibna tartiib lacagtiisu ugu celiyay markuu ka codsaday inuu shirkadda ka baxo waxyaabaha akoonkiisa ku soo dhaca waxaa ka mid ah lacag gaaraysa 5,000 oo markii aabihii oo Hindiya u qaadayay qaraabadu u soo ururisay isla markaana akoonkiisa asaga oo ku shubay IBS maadaama aabbo oo qaadayo oo raba lacagtaas inuu ka isticmaalo akoonkiisa lacag ku soo dhaca waxaa ka mid ah $2,000 oo u soo diray qof gobol joogo oo isyaqaaniin oo ku yiri laptop iyo iPad iga dalab Hindiya ninkaas waxaa magaciisa la yiraahdaa Isaaq waa laga fahmi karaa akoonka laga fahmi karaa 12 bishii 2023 akoonkiisa asiga ayaa dhigay 150 oo kamid ah lacagii aabba lagu daaweynayay 18 bishii 2023 waxaa akoonkiisa la dhigay lacag gaaraysa 2,200 oo kamid aheeday lacagihii aabihii lagu daaweynayay marka aan fiirino maalinta loo soo bedelay lacaga akoonkiisa ku jiro waxaa soo haray 35,000 maalintii la soo bedelay kuwa hadda aan sheegnay waxa ka duwan 35,000 kaliya 35,000 oo aheeday lacago horay ugu jiray kamid aheed marka akoonkiisa sidaas waaye 30,000 iyo 20,000 lacag dhaqis loo meeqaan waxaan rabnaa mudane gudoomiye maxkamadda sharafta leh dhowr arrimoodba inaan maxkamaddu u soo gudbino oo la xiriiro akoonka maadaama akoonka ay si gaar u la xiriiraan waxaan rabnaa cadeymahaas inaan si gaar u soo gudbino cadeynta koowaad عدينتو كوباد waxay ku saabsantaa maadaama lacagta ugu badan Cabdiqani ay ka timiday shirkadda Cabdiqani registration-keeda iyo sidoo kale Cabdiqani oo cadeynayo inuu 14,000 lacag gaarayso oo muwakkilkeeyu company-kiisa ku darsaday kadibna tartiib ugu celiyay labadaas cadeymood aan rabnaa inaan marka koobaad maxkamaddu u gudbino عدينت اللبعض وحيكون سابسن تهي إنه أبي سندي الرعاي ورقة يقولوا وزارة الرماية دبدا وفي زل وجود الباي موكل كنا يسودو كلاتو اسلف في هندي وكذا لابد أصبح عدينا يعني به وهذا محكمة دا نقول كده كجرا إنه قاضي وهندي وقاضي lacagaha dhowrka ah 5,000 ugu horeyso 2,200 ay ku xigto 1,100 ay ku xigaan sababtaasna ay ugu soo dhaceen akoonkiisa oo qaraabadii ay u soo ururisay akoonkiisa sababta loogu shubnay aheeday maadaama uu yahay asagu qofkii aabba raacay fiisihi iyo waxaan soo gudbinaynaa warqad kale oo muwakkilkeyga ay u qortay wasaaradda arrimaha dibadda si fiican uma muuqdaan sawiraan ku helnay laakiin waa la akhri karaa fiisana waa la akhri karaa warqadaas wasaaradda arrimaha dibadda ay muxuu ahay taas waxay muujinaysaa lacagaha akoonkiisa ku soo dhacay inaanay tilmaamaynin wax fal dambiyada inaanay tilmaamaynin wax lacag dhaqisa waana sababta FRC ay uga gaabsatay inay muwakkilkeyga report ka keento
maxkamaddu waa mahadsantahay labada qeybood kaleeto waxaan ku soo dhaweynaa qareen jelle. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.